waqtigan hadda la galay kii la isku baranayo waa kii lagu baayo maanarto oo cid wax bixisa ma joogta abaabulkan iyo dagaalkan waa kii la isku baranayay dadaan waxba hayn ayaa banaanka soo baxaan oo dadaan tiro badnayn ama micno badan soo bandhigaan gadaalna iska mariyaan awoodii iyo tayadii iyo tiradii dawladda iyo ciidamadii kuma dooska ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayay waxay leeyihiin annaga wax tarno dad hebel iyo gobol hebel wax tiri maayaan inaad dadkaas dareensiisana la iska rabaa inay wax tariisaan gudoomiyihii gobolka jooga xildhibaanadii federaalka jooga kuwa maqan annaga ku metelna adinkana waxba idin kama dambeeyaan waayo Yuusuf Kabaalo kan annagana garbiina taagana deegaan kasta tuulo kasta iyo degmo kasta ee dadkoodu ay diyaar u yihiin inay cadow iska kiciyaan annagana annagoo mida oo kuraastan ama metelaadan waxa lagu fadhiyaa 4.5 qabiil annagoo mutulooda ayaan dad ahaan iyo deegaan ahaan iyo metelaad ahaan waxaan diyaar u nahay inaan guud ahaan u garab istaagno inta dhimanna waa garab istaagi doonaa waana tagi doonaa mana laaba doono intii deegaan mutulooda tuulo kamid ah argagixisada ay ku nooshahay haddii Ilaahay raali ka noqdo waxaan rajaynayaa inaan fursaddan ka faa'iideysano adinka waa ka faa'iideysateen inaad uga faa'iideysaan dadyowga walaalihiina ehelkiina dariskiina ah ayaa loo baahan yahay u sheegtaan inaysan argagixisada waxba ahayn in la dili karo inaan laga baqin in la baacsan karo inaad tustiina loo baahan yahay waxaa noogala badan yahay annaga halganka iyo dagaalka iyo geesinimada iyo dadnimada noogalama horeeyo noogalama badno laakiin barabagaandada noogala badan yahay iyadana inaan dad u yeelano waay annaga sidaan been u sheegna ma naqaan sidaan dad u cayna ma naqaan sidaan waxaan jirin u abuurna ma naqaan wixii sax ahoo tanoo kale ha naqaana aan fahmi karnaa intaan soo aragnay waxaan rabnaa marka dadka u horeeyo gudoomiyaha gobolka inay dadka u sheegaan ay yiraahaan war dadkan waa tagay maalmaha soo socda wixii ka dambeeyeen waxa la rabaa waxtarkiina waxa ka dhiman waxa waayo deegaankiina inaan kooxaha argagixisada aysan ka harin maalmaha soo socda waqtigaana wado waa ku faraxsanahay inaan nimaado deegaanka aqab duco inta dhimanna waa tagi doonaa in badanna waa soo marnay waan uga mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka iyo maamulka deegaanka iyo degmooyinka waan ku faraxsanahay 100% waa garabkiina nahay waan idin garab istaagnaa doonaa Ilaahay idinkiisa